waxa uu ahaa sarkaal ku-xigeen ka tirsan ciidamada booliiska xilligaasi ka horna waxa uu ka mid ahaa ciidamo si khaasa loogu soo tababaray dalka Jabuuti si ay u ilaaliyaan madaxda sare ee dalka. sarkaalka aan ka hadlayaa waa Nuur Ibraahim Mahadalle. waxa uu ahaa nin hadda ka hor ay qabteen ururka Al-Shabaab kadibna ay sii daayeen. bishii Juulaay ee sanadkii hore ayaa laga ceyriyay ciidamada booliiska Soomaaliya kadib markii lagu helay inuu qorigiisa lunsaday. intaasi wixii ka dambeeyay waxa uu inta badan ku sugnaa magaalada Muqdisho inkastoo xilliyada qaar uu tagi jiray magaalada Beledweyne. 17 Abriil ee sanadkan waxaa telefoon u soo diray sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Axmed Guure kuna magac dheer Cali Qoyane kana mid ah saraakiisha ka howlgala deegaanka Maxaas oo uu ka soo jeedo. waxaa sarkaalkaasi ka tirsan Al-Shabaab uu u sheegay inay yaqaanaan shaqadiisa haddii uu doonayo inuu shaqadaasi si madax bannaan u qabsadana uu ururka howlu fuliyo. markii aqbalaad laga helay waxaa loo sheegay halka uu tegayo iyo alaabta uu soo qaadayo oo saarnaa baabuur loo tilmaamay halka uu ka joogo magaalada Beledweyne. waxaa loo sheegay inuu alaabtaasi ka qaado Beledweyne oo uu geeyo magaalada Maxaas isaga oo boorso ku wareejiyey alaabtii uu waday oo ku jirtay gasac kuwa caanabooraha lagu keeno ah. agabka ku jiray gasacana waxa uu ahaa qarax. waxaa loo sheegay in marka uu tago magaalada Maxaas uu alaabtaasi ku wareejiyo mas-uulka ugu sarreeya magaalada oo ah guddoomiyaha degmada Maxaas Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale oo ku magac dheer Afcaday. 4tii galabnimo ee 18 Abriil Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu la kulmay Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale guddoomiyaha degmada Maxaas. saraakiisha amnigu waxay galka baarista u sheegeen inay labadoodu isku afkarteen inaysan shirqoolka ay maleegayaan cid kale la wadaagin. Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ku qanciyey Nuur Ibraahim Mahadalle inuu qaraxaasi ku aaso maqaayad lagu iibiyo jaadka oo ku taala magaalada Maxaas. waxaana uu sheegay in haddii uu qof kale u diri lahaa hawshaasi inuu qabto ay taasi fashilinayso qorshaha sida lagu ogaaday xog waraysigii laamaha amniga. Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu weydiiyey Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale cidda loo wado qaraxa waxaana guddoomiyaha degmada Maxaas uu ugu jawaabay inay dad badani dhibaato ku hayaan loona wada mid ka mid ah dadka dhibaatada isaga ku haya. waxa uu u sheegay in dad badan ay ku kacsan yihiin. Rashiid Cusmaan Cabdi waxa uu ahaa nin firfircoon oo yaqaana sida loola macaamilo hay'adaha gargaarka. waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka magaalada Maxaas. waxa uu ahaa ninka loo waday qaraxa. Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale guddoomiyaha degmada Maxaas ee xilligaasi waxa uu ku eedeynayay Rashiid Cusmaan Cabdi inuu xitaa isaga dacweeyey hay-adihiina uu baqshada u diray isla markaana uu ka hor keenay dadka ganacsatada ah ee magaalada. waxaana mas-uuliyadda xiriirka xumaada ee uu la lahaa hay-adaha gargaarka iyo ganacsatada uu saarayey guddoomiye ku-xigeenkiisa Rashiid Cusmaan Cabdi. waxaa la soo gaaray 19 Abriil waxaa bamku uu ku aasan yahay maqaayadda lagu gado jaadka ee degmada Maxaas. maqaayaddaasi waxaa lagu ballamiyey Nuur Ibraahim Mahadalle inuu ka qaato marduuf jaad ah. waxaa sidoo kale ku ballansanaa inuu yimaado Rashiid Cusmaan Cabdi guddoomiye ku-xigeenka degmada Maxaas oo isna ku ballansanaa halkaasi inuu ka qaato marduuf jaad ah. ma cadda ilaa haatan in Rashiid Cusmaan Cabdi shakhsiyaadka shirqoolaya ay u sheegeen inuu halkaasi ka doonto qaadka iyo inuu isagu iskiisu yimid. Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu gogladay maqaayadda haddana wuu ka kacay isaga oo iska dhigaya inuu soo qaadanayo sigaar iyo shaah. waxaa gogashiisii ku fadhiistay 3 nin oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cusmaan Cabdi. waxaa mar keliya la maqlay qarax kaasi oo ka kacay maqaayaddii lagu iibinayay qaadka. qaraxaasi waxaa ku dhintay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Rashiid Cusmaan Cabdi. kadib markii qaraxaasi u dhacay booliisku waxay bilaabeen baadhitaan. booliisku waxay sheegeen in qofkii ugu horreeyey ee ka shakiyaan uu ahaa Nuur Ibraahim Mahadalle. sababtuna waxay ahayd inuu muddo ka maqnaa magaalada Maxaas uuna dib ugu soo laabtay maalintii ka horreysay qaraxa. isla habeenkii qaraxu dhacay ayaa la qabtay Nuur Ibraahim Mahadalle. maalmo kadibna waxa uu u qirtay laamaha amniga inuu lug ku lahaa shirqoolkaasi. waxaa sidoo kale uu sheegay sidii loo qorsheeyey iyo dadkii qaybta ka ahaa. bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay waxaa xeer ilaalinta Soomaaliya ay xireen guddoomiyihii degmada Maxaas Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale. 17 bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayaa maxkamad la soo taagay 3 eedaysane kuwaasi oo kala ahaa Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan, Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale guddoomiyihii degmada Maxaas ee xilligaasi iyo Nuur Ibraahim Mahadalle oo hore uga tirsanaa booliiska Soomaaliya.
soddonkii bishii Oktoobar waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay gaadhay xukun kadib markii ay kiiska dhageysanaysay muddo ku dhow 2 toddobaad. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal. 1. Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqana ah. 2. Nuur Ibraahim Mahad Allah 42 jir ah. 3. Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale 57 jir ah. Maxkamadda waxaa u cadaatay in saddexda eedeysana ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay. 1. Dambiile Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqana ah. 2. Dambiile Nuur Ibraahim Mahad Allah waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi. 3. Dambiile Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. Sida aad maqlayseenna Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale waxaa lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii garsoorayaashu ay isku raaci waayeen xukunkii dilka ahaa. Isaguna waxa uu ku dooday inuusan si toos ah ugu lug lahayn dilka Rashiid Cusmaan Cabdi. Qareenkiisa ayaa u sheegay maxkamadda in Sheekh Cabdi uu hawlo kala duwan oo dawladeed ka qabtay magaalada Maxaas, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhismaha xabsi iyo dibudhiska xafiisyada dawladda. Waxayna ku doodeen qareennadiisu in haddii uu Al-shabaab gacansaar la lahaa aysan hawlahaasi suurto galeen. Waxa uu Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale maxkamadda u sheegay inuu soo wici jiray xaaladda magaaladan uu ka wareysan jiray sargaalka ka tirsan ururka Al-shabaab Cali Qoyane, waxaana uu qirtay inuu handaday hadda ka hor. Cali Axmed Guure waa ay hanjabi dhowr mar uu soo wacay dawladda ridada xad u gasho wiri war adiga dooqaad ku gashay nimankan shayaadiinta ana haduu leeyahay kan wada dooqaygan ku gale waan edab daran tahay day saddex mar waa nin macnaha ku saladan shabaabku dhowr nooc oo noqda nin hadii macnaha nimanka shabaab galo ariisu isaga qaraabta haduu leeyahay kan wada dadkiisa waa nabad geliya midna ehelkiisa Ilaahay ku salada nin Ilaahay ku salada maxaas waa haduu leeyahay dhowcil waa soociye oday waa soociye cid ka soo wacay haduu leeyahay kan wada. Gudoomiyaha cusub ee degmada Maxaas Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish waxa uu isku dayayaa inuu nabadeeyo magaalada isla markaana uu dhayo boogihii ka dhashay dilka foosh xun ee ka dhacay magaaladaasi. Waxa uu ka gaabsaday inuu wax badan ka sheego kiiska ninka xilka uga horeeyay. Hase yeeshee waxa uu ka hadlay dhibaatada ay deegaanka ku hayaan ururka Al-shabaab, gaar ahaan sargaalka lagu magacaabo Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka soo jeeda deegaanka Maxaas. Ninkan shabaabka ka tirsan sargaalka la yiraahdo Cali Axmed Guure nin caynkay weeye maxaad nooga sheegi kartaa? Horta ninkaasi maxkamadda xukuntay horeyna uu xukunaaba marka maxkamadda xukunkaas waa kala soo degdegtay maaragtay mar hore kadib xukunkaas ay soo dedejiso ayay ahayd ayaan ka rabaa. runtii wuxuu ku leeyahay saameyn degmada saameyn ayuu ku leeyahay waayo waa degmadii uu ku dhashay ku soo barbaaray qofkuna markii qofka uu la dhashay oo la soo barbaaray oo yaqaano wuu sahlanaa kartaa inuu soo waco ama xiriir uu la soo sameeyo. wax kaleeto oo Al-shabaab ugu bedelan yahay ma lahan. Al-shabaabka maaragtay dagaalamo ka mid yahay argagixisada wax umaado ka mid yahay kuwa falalka argagixisanimo sameeyo ka mid yahay kuwa hadda maaragtay dadka maxkamaddu ay xukuntay maran hadaabiyay oo koow ka yahay ninka dhintay ninka dilay maaragtay ayuu koow ka yahay. saameynta uu ku leeyahay marka uu ugu duwan yahay argagixisada kaleeto waa mid u dhalasho ah. Ninkan dhintay ma isagaa rabay inuu bartilmaameedsado mise dad kale ayaa la xiriiro yiri dadkaas ninkaasa maaragtay waxna dhex mareene hal la dilo mise iyagu ka yimid go'aanka gudoomiye ku-xigeenka in la dilo? waa maasantahay horta su-aashaasi horeyna waa kuugu sheegay arrinkaas kiiska maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad xukunka ay fulisay in maaragtay waxaad iga su-aashid aan kaaga jawaabo. marka ninkaasi runtii horta qof aan Al-shabaab maaragtay xiriir la lahayn in Al-shabaab intay maaragtay xiriir la soo sameeyaan degdeg danahay lahayn ugu fulsadaan ma suurta geli karto. waa wax suura geli kara aniga ilama ahan. qofkii degdeg ugu soo aamineen qarax in uu meel gasho meena uu meel geliyo qof kaleeto lagu qarxiyo waa xiriir dheer oo maaragtay in badan la dhihi karo way wada xiriirayeen. taasaan ugu jawaabayaa. marka dadku
way wada joogaan oo wada sheekaynayaan laakiin qalbigooda iyo waxay qabaan iyo mabaadi'dooda ilaah baa garanaya qofkii aan banaanka asugu iskeenin cid keeni kartaa ma jirto barnaamijka galka baarista waxaa u suurtogeli weysay inuu xiriir la sameeyo cali axmed guure cali qoyane oo ka tirsan saraakiisha al-shabaab ee gobolka hiiraan hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa hore u sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi isla maalintii uu dhacay weerarku xukunka ay dhowaan riday maxkamadda milatariga ee dilka ka dhacay magaalada Maxaas iyo qaraxii magaalada Muqdisho oo ay ka dambeysay sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxay yimaadeen xilli ay dawladdu doonayso inay baaritaan ku samayso shaqaalaha dawladda. baaritaanka shaqaalaha dawladda ayaa sargaal ka tirsan hay'adaha amnigu ii sheegay inay bilowdeen bartamihii sanadkan ilaa haatanna ay mareen shaqaalaha qaar ka mida wasaaradaha dawladda sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, maaliyadda iyo gobolka Banaadir. sidoo kale waxaa sargaalkaasi amnigu ii sheegay in hay'adda nabad sugidda ee NISA ay iyaduna bilowday inay diiwaan u samayso wixii shaqaale cusub ah ee u shaqaynaya hay'adaha kala duwan ee dawladda. hase yeeshee baaritaanka waxaa la dardargeliyey kadib qaraxii ka dhacay xafiiska duqa magaalada Muqdisho 24kii bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay, kaasi oo ugu dambayn uu ku dhintay guddoomiyihii iyo duqii hore ee Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow. ugu dambaynna baaritaankani waxa uu wada saamayn doonaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Soomaaliya oo lagu qiyaasay 5,500 qof. waraysiyada la xiriira baaritaanka shaqaalaha ayaa qaarkood ay ka dhaceen goobaha shaqada, iyadoo shaqaalaha qaarkoodna looga yeeray godka Jilicow, halkaasi oo ay joogeen shaqaale ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo u tababarnaa baaritaankan. qaar ka mid a shaqaalaha dawladda oo maray baaritaankan waxay galka baarista u sheegeen inuu leeyahay 2 weji oo isugu jira waraysiga hore iyo wejiga labaad oo saameynaya si baaritaanka dadka qofka shaqaalaha ah uu xiriirka la leeyahay. mid ka mid a shaqaalaha maray baaritaanka oo ka gaabsaday inuu magaciisa sheego isagoo u cabsanaya shaqadiisa waxa uu galka baarista u sheegay in xataa la booqday goobta uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. guud ahaan galka baaristu waxa uu la hadlay 4 ka mid a shaqaalaha maray baaritaankan, waxayna isku raaceen in su'aalaha la weydiiyey ay ka mid yihiin magaca qofka, xilliga ay heleen shaqada dawladda iyo sida ay ku heleen ama qofkii damiinka ka ahaa, qabiilka qofka, degmada iyo waaxda uu degan yahay, inuu gurigiisa ugu jiro kiro iyo inuu leeyahay, heerka mushaharkiisa iyo halka loogu shubo. waxa kale oo shaqaalaha la weydiinayay su'aalo khaas ah oo ku saabsan dhinaca amniga, sida inuu xiriir la leeyahay ururada xagjirka ah iyo inuu tegay dhulka ay ka taliyaan, inay soo wacaan ama lacaga baad ah ay weydiistaan kooxaha xagjirka ah sida al-shabaab, iyo in qofka shaqaalaha ah ay dhibaato ka soo gaartay weerarada ururka al-shabaab, in xubno ka tirsan ehelkiisa ay ka mid yihiin ururka al-shabaab iyo ururada kale ee xagjirka ah, iyo su'aalo kuwaasi ka agdhow. su'aalahaasi waxay ahaayeen kuwo ay ka sinaayeen 4 qof ee uu la hadlay galka baaristu. hase yeeshee mid ka mid a 4taasi qof ee shaqaalaha dawladda ah ayaa galka baarista u sheegay in ka hor inta uusan saxeexin macluumaadka laga qoray loo akhriyo qoraal ka dalbanaya inuu oggolaado inuu shaqo kasta oo dawladda Soomaaliya u dirsato uu raalli ka yahay inuu qabto, waqti kasta oo loo baahdana la heli karo. hase yeeshee ma cadda in qoraalkaasi uu yahay mid loo akhrinayo dhammaan shaqaalaha dawladda iyo inuu ku kooban yahay xubno gaar ah. baaritaanka shaqaalaha dawladda ayaa ah tallaabo in muddo ah ay dalbanayeen khubarada u kuurgasha dhinaca amniga, waxaana saraakiisha amnigu ay ii sheegeen inay qayb muhiima ka tahay sugidda amniga shaqaalaha iyo hay'adaha dawladda. hase yeeshee waxaa qaar ka mid a shaqaaluhu ay walaac ka qabaan inay baaritaankan ku haraan, islamarkaana ay ku weyn karaan shaqooyinkooda haddii macluumaadka la weydiiyey ay wada heli waayaan sida cid wakiil ka noqota. gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracase waxa uu ka taliyaa deegaan uu sheegay inay dhibaatada ugu weyn ku hayaan xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab ee ka soo jeeda koonfur galbeed. gudoomiye Aracase waxa uu ii sheegay in loo baahan yahay in dawladda iyo maamuladuba ay ka fiirsadaan dadka ay xilalka u magacaabayaan. ninka kow markii la magacaabo in laga fiirsado oo mabdigiisa iyo aqoontiisa la fiiriyo horta ku fiican. nin kasta oo arkan in laska magacaabo waa kan hadda sheegaysa nin gudoomiye dawlad wadanka dawladdan wakiil oo deegaankii inuu la xiriiro shabaab oo cadow ah oo cadowga islaamka cadowga Soomaaliyeed oo dhan in la xiriiro oo nin ay team isku inay dawlad ka sheegaan inuu saas ku dhibaateeyo waa nasiib darro ama iyaguba ay la soo xiriiraan. marka dhammaan hadii kulli dawladda iyo
waxaan ka codsanaya nin kasta oo system dawladeed ku jiro oo shabaab xiriir la sameeya in horta maaragtay sharciga la waafajiyo. waxaynu ka warsugaynaa haddaba haddii barnaamijka cusub ee dowladda Soomaaliya ay ku hubinayso shaqaalaha dowladda uu soo saari karo dadka gacansaarka leh ururka Al-Shabaab iyo ururada kale ee xag jirka ah. dhegaystayaal waxay iga xasuusinahay inaan la xiriiray wasiirada warfaafinta iyo shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalka Soomaaliya balse iima suuro gelin inaan ku qanciyo inay xilligan waraysi bixiyaan.